waxaa 24 saacadood ugu dambeysay baraha bulshada qabsaday fanaan lagu magacaabo Grambi Soomaalidana ay u bixisay Alfanaan Dooli taasoo baraha bulshada gaar ahaan baraha internetka ee social media sida Facebook ay qabsatay sawiradiisa isaga iyo lamaanihiisa cusub hasaatee ninkan ayaa muujisada ugu weyn waxay tahay gabadha uu guursaday iyo muuqaalka isaga uu leeyahay ninkan ayaa ah nin aad u gaaban muuqaal ahaanna aad u dhuuban waxaa lagu tilmaamay ninkani in daadiisu ay tahay 30 jir halka gabadha uu guursaday marka la eego muuqaalkeeda iyo jir ahaanteedana ay tahay gabadh aad iyo aad uga weyn waxaana isku noqonayaan hooyo iyo wiilkeed laakiinse dadka ayaa ku tilmaamay arrinkani mid aad iyo aad muujisa u ah si kastaba haatee ninkan sawiradiisa iyo gabadha uu qabo ayaa baraha bulshada waxa uu ka noqday maadays taas oo dadku ay la noqotay fajiciso halka dadka qaarna ayba ka dhigteen qosol iyo xaraabo hasaatee ninkani waa nin caan ah waxaan la sheegay in dumar badan oo ka soo jeeda dalka Guinea kuwaasal ahaan isaga ka soo jeedo ay isku qabsadeen dumar kale taasoo markii dambe uu ka calmaday qalanjadii ugu quruxda badneed gudaha dalka Guinea waxaana baraha bulshada gaar ahaan website-da ka soo baxa iyo jaraa'idada ka soo baxa dalalka Guinea la soo qaadadhigay sidoo kalena sawiradiisa lagu baahiyay baraha internetka lagu sheegay in ninkani uu isku cusub jibiyay maadaama uu yahay shakhsi ka soo dhex muuqday shacbiyad badan ku leh bulshada dhexdeeda waxaana inta badan gaar ahaan baraha internetka oo ay Soomaalidu ku kulanto halkaasi uu noqday maadays iyo xaraabo taasi dadka qaarna ay soo dhaweeyeen halka dadka qaarna ay u arkaan in arrinkan uu yahay kaafi kala dheeri waxaana waxyaabaha ugu muujisada badan leh in muuqaalo live uu soo duubay ninkani isagoo xaaskiisa kula baashaalayo meelaha cafeteria-da iyo meelaha aadka u quruxda badan ninkan waxa uu noqday fanaanka ugu saameynta badan leh baraha bulshada gaar ahaan dalka uu ka soo jeedo ee Guinea